ma laga yaabaa in aan halis ku galno ayuu yidhi alan oo aan wax hubin. markaas buu abtigii ugu jawaabay, ma jirto halis idinkaga imaan karta wax ruuxaanta ka daran, mana haysanno wax badan oo aan kala dooranno. haddii aad falkan ka maagto, adigana waxaa ku qabsanaya dhibka hooyada haysta oo kale. hawalwalin hooyo, annaga oo qaanbaxnay ayaan soo laaban doonaa. dooris baa sidaas wiilkeeda ku dhiirigelisay, una raacisay, wax la ugaarsado dadka ayaa ugu fudud. agtaada ayay iska soo fadhiisanayaan oo sidii duurjoogta kaama cabsanayaan. daqiiqado gudahood ayaa go'aan lagu qaatay. waxay galeen tabaabusho. alan wuxuu urursanayaa midiyo af leh, fallaaro, xargo, teendhadii uu beertiisa ku mudan jiray, cunto, taraq iyo wax walba oo kaynta ku anfici doona. waaba kan hilmaamay inuu galabta marti sugayay. iyaga oo diyaar u ah inay gaariga fuulaan ayaa iridii la soo garaacay. eeddi ayaa meel duleesha ka fiiriyey oo intuu soo laabtay yidhi, waa Winifred. wadnihii ugu horreeyey ayaa iskeenay. eeddi sida uu qoslay waxaad moodaa qof howlahan waayo badan ku soo jiray. garkiisa ayuu isaga falaadayaa. marmarna wax aan loo jeedin ayuu la qoslayaa. maya abti, tan qali maysid. aniga ayaa hooyo u qali doono dhibanayaal aanay cidina ogaan doonin, ayuu alan ku baryootamay. dhibanayaalkuye, wadna dheh, wadna dhiigaya dheh. eeddi baa ugu jawaaba isaga oo qosol yar la dhoolbirayo. si ay martida timi isaga qariyaan, dooris iyo eeddi waxay u dhaqaaqeen qolalka dambe ee guriga. alanna wuxuu aaday inuu albaabka ka furo Winifred. sida ay kulankiisa u sugi la'da darteed ayay albaabka si daran u garaacaysaa. intuu iridda ka furay ayuu war uga bilaabay, Winifred ma nabad qabtaa? gabadhu ma garan balada jirta ee ay ka nabad qabto. alanna kama muuqata furfurnaantii hore. walwal iyo fiig ayaa indhihiisa laga dareemayaa. wixii jira waa la hubsan doonaa. haddase intuu gacanta qabtay ayuu gudaha u soo tallaabiyey. markii la wada fadhiistay ayay Winifred aragtay dhiig yar oo shaatigiisa ku yaal. ma dhiig baa ayay tiri. markaas buu isaga oo aan fakirin yidhi, haa, far baan iska saray aniga oo hilib jarjaraya. farihiisa ayay eegtay, mise dhaawac kuma yaal. intay qusushay ayay ku tiri, oo durba ma raysatay. wax yar isug, aan cabitaanka kuu keenay, ayuu yidhi alan oo raadinaya wakhti uga fakaro wixii uu samayn lahaa. qalqal aanu weligii dareemin ayaa ka tanbadiyey. waa dareen aanu qarin karin. intuu galay qolkii hooyadii iyo abtigii ku jireen ayuu yidhi, fadlan wax saacad ka yar isiiya, waan dirayaa. saacadi way badan tahay ee degdeg u dir ama inta noogu keen. eeddi markuu sidaas yidhi ay dooris qososhay oo si hoose u tiri, alan wuu waalan lahaa haddii uu maalintii qoborka nala joogi lahaa. intii uu alan ka maqnaa ayay Winifred furtay iriddii ku aadanay daaradda labaad. waxaa ku yaal giriille iyo walambo. ay wakhti fiican kula qaadatay alan. qiiq baxayo ayay haddana u jeeday oo dhankiisa u tallaabsatay. mise waxay aragtay dabqaad ay lubaani ku jirto iyo orgi madow oo gowracan. way garatay meesha uu ka yimid dhiiggii shaatiga saaxiibkeed ku yiil. haddana way qososhay iyada oo mala awaalayso falaanfulka uu reerku samaysanayay. waxay dareentay in howlo kale ay ka socdaan aqalka gudihiisa. iyada oo aayar u taagsanayso ayay soo gashay qol aan laga filayn. markay iridda soo istaagtay ayay indhaha ku dhufatay wejigii dhogorta lahaa iyo dhegihii bilacsanaay ee dooris. intay qaylisay ay dhankii albaabka isku daysay. waa qaylo fashilin karta sirtii qoyska ee qarniga soo taxnayd. baxsadkeedana waxaa ka dhalanaya saamayn aan la mahadin. bal maxaa u diiday in ay isdejiso oo ay wax hubsato? eeddi ayaa ka daba booday oo mindi caloosha ka geliyey. mindhicirkii caloosha ka soo dhacay ayuu gacanta la helay. Winifred waxay gacanta la heshay albaabkii. markii ay iridda sidaas u furtay ayuu gadaal u soo jiiday oo ay caloosheedii oo dhan dhulka ku soo dhacday. gabadhii qurxanayd oo meyd ah ayuu dhiiggeedii
daaradda kalxaday. alan oo dhowr tallaaba ka dambeeyey abtigii ayaa iridii xiray. eddie iyo dorisna gabadhii ayay gacmaha iyo lugaha qabteen oo gudaha u dandaamiyeen. orad oo dhiiggaas nadiifi, orgigana keen daaradda gadaale, wax raad ah meesha ha uga soo tegin, ayuu yidhi eddie oo alan la hadlayo. intii uu alan hawsha nadaafadda hayay ayuu eddie wadnihii ku shiilay baruur uu ka soo jarjaray caloosha iyo barida winifred. daqiiqada kadib ayuu alan soo galay, hooyadii oo wadnihii cunaysa iyo eddie oo hilibkii kale jarjarayo. hoo dhadhami, ayay tiri iyada oo cadyar u soo taagtay. alanna isaga oo dhiiranaan ka raadinayo maadaama ay tahay howl uu baryo badan qaban doono ayuu cadkii dhadhamiyey. waa hilibka saaxiibtii uu dadka ugu jeclaa. saacado ka hor ayuu guurkeeda ku fekerayay, haddana wadnaheedii ayuu ruugayaa. ka waran, ayay ku tiri doris oo si quman indhihiisa u eegaysa. ma ogi, ayuu ku jawaabay isaga oo ay gacmihiisu gariirayaan. waa iska sidaas maalinta kugu horraysa, ayay igu jawaabtay. alan gadaal ayuu u santeecsaday isaga oo la moodo inuu xusuus dheer galay. malaha erayada hooyadiis ayuu wax ka dhex fasirtay, iyaga oo sidaas u dul fadhiya weelkii oo maran, balse uu salkiisa dhiiggari ku dambeeyo. maadaama aan awalba si wacan loo bislayn ayaa waxaa la soo fadhiistay eddie. hilibkii oo dhan ayuu qaboojiyaha ku soo xareeyey. korkiisa dhibic dhiig ahi kama muuqato, barafuun ayaana ka soo carfaya. inuu falkan cabbaar ku soo jiray waxaa tusinaya degganaanta ka muuqato. sidii qof hurdo fiican ka soo toosay ayuu u xasilan yahay. wax baan kuu sheegayaa aadan ka ogayn dhasheegga kaynta geerida, ayuu eddie yidhi. kadibna faallo dheer ayuu u galay. dadku waxay runsan yihiin in ay meel kastaaba dadka liqdo. waxaase liqa ceylka ku yaal sanaagta buurta yar, kuna toosan 3 geed kan midigta xigo marka aad dhanka bari u jeedo. geedahaas gadaashooda ayaad teendhada ka dhisanaysaan. waxaa jira 2 nin oo xertayda ah oo iyaguna kaynta ka ugaarsada. waxaad ku garan doontaa mid kastaaba daanka bidix ayuu haar ku leeyahay. mid baa madax xiiran, midna wuu tin guduudan yahay. marka u horreeya ee aad aragto u sheeg in adiga iyo hooyadaaba aad meeshan ku joogtaan amarkayga. wixii farriin ahna iyaga igu soo dhiib. halkaas ayay ka dhaqaaqeen alan iyo hooyadiis. intay qorraxdu dhicin ayay rabaan inay gaaraan kaynta geerida. eddie isagu wuxuu ku haray aqalkii doris. isagu xaas iyo carruur midna ma laha. meel magaalada ka baxsan ayuu aqal weyn ku leeyahay, balse inta badan guriga walaashiis ayuu joogaa. marmarna kaymaha ayuu qalwo u aadaa oo uu baryo ku maqnaadaa. waa qoys aad isugu xiran, dariskooduna aad bay u jecel yihiin. dadku waxay isku nacaan oo keliya inta ay iska og yihiin, balse reerkan wax badan lagama oga, waana la qadariyaa. alan iyo doris waxay soo gaareen bartanka kaynta geerida, meel cegar ah oo dhirta dheerdheeri wada daday una dhexaysa balli iyo dhasheegii dadliqa ahaa ayay salka dhigteen. markuu hooyadii teendhadii u muday oo ay gogosheedii fadhiisatay ayuu alan soo tegay oo geed wax yar u jira dushiisa ka samaystay shacshac. waa meel u suurto gelinaysa inuu kor kala socdo dhaqdhaqaaqa kaynta oo dhan. habeenkaas markuu cashadii siiyey hooyadiis ayuu ku yidhi, kaynta ayaan soo wareegayaa ee iska seexo. geedkii uu shacshaca ka dul dhisay ayuu fuulay. waa shacshac ku yaal bartanka laamaha shiran oo aan cidna laga arkin. ma jirto meel ka wanaagsan oo la isku qariyo. malaha hooyadiis ayuu ka cabsanayaa oo kuma kalsoono waxa ay samayn karto haddii uu teendhada la seexdo. hubaal doris waa qof aan looga fakan karin god ama geed korkiis. waxaa u kordhay ogaal iyo awood jireed, waxaana wehliya ruuxaan ka adeegata inta u dhexayso 7 meere ee qorraxda ku dul wareega iyo kuwa kale oo aanu weli aadanuhu baray. jinka oo dhan ayaa u warramaya.
meel 100 tallaabo u jirto ayay jiiftaa. waa aroor isniin ah. shalay markii uu Alan kaynta yimidna wuxuu maqlay nin oranayo axad iyo isniin walba barqadii ayaan kaynta imaadaa. buurtii uu sheegay in uu fuulana kama foga geedkiisa. sidaas awgeed waa fursaddii koowaad ee uu maanta qofku ugaarsado. intuu geedkii ka soo degay ayuu hooyadii u tegay. wayba soo jeedaa oo shaah bay karisay. beerna way solaysaa. hooyo, halkeed beerka ka keentay ayuu ku yidhi. waa beerkii Winifred oo Eedi ayaa shalay bac igu soo riday, ayay ugu jawaabtay cod xabeeban oo sidii gabiyeerta u laba dhacayo. oo wixii aan cunaynay maxay ahaayeen? ayuu weydiiyey isaga oo uga shakisan in ay hooyadiis kaligeed wax ugaarsatay. waxay ahaayeen wadnihii gabadha iyo wadnihii orgaga oo la isku daray, ayay tiri, una raacisay. si fiican baad u kala baran doontaa farqiga u dhexeeyo beerka iyo wadnaha. markuu hooyadii la quraacday ayuu u soo laabtay geedkiisii. wuxuu sitaa mindi, xarig iyo baangad. isaga oo meeshii saaran ayuu halkaas ka arkay nin iyo naag. waxay dul saaran yihiin buuryartii. markay cabbaar geesaha eegeen ayay ka soo degteen. misena waxay kaga mirqeen kaynta. maadaama ay dhankiisa u soo dhaqaaqeen ayuu geedkii ka soo degay oo waddadii jiqda ahayd ugu gambaday. wax yar kadib ayaa waxaa ku soo baxay ninkii oo keligii socda. seefta dhiigga leh ee uu ninku sito ayaa sheegaysa meesha ay naagtii ka baxday. si fiican buu u eegay. mise waa ninkii tinta gaduudnaay ee uu abtigiis u sheegay. markii uu dhaafay ayuu Alan waddada dhexdeeda soo istaagay kuna yidhi, Morgan. ninkii ayaa soo jeestay. si fiican buu u eegay. mise daanka ayuu haarku leeyahay. kolkuu hubsaday ayuu yidhi, Eedi xertiisa ayaan ahay. aniga iyo hooyaday ayuuna soo diray. meeday Doris ayuu ninkii yidhi isaga oo caddaynaya inuu cidda yaqaan. xoogaalna yahay isaga oo aan hadlin ayuu gacanta ugu baaqay. waxaana la aaday dankii teendhada. dhowr su'aalood oo Alan warsaday kama jawaabin Morgan. wuu aamusan yahay. markii ay teendhadii tageen ayay Doris ku soo booday. hab ayay siisay kuna tiri, walaalkeeyow, nin la jecel yahay ayaa tahay ee ka fogow dhagartii hore oo kale. aargoosigu xad ayuu leeyahay. innaga oo aan loolamin ayaan wada guulaysan karnaa. ma jirto wax uu dhibanuhu ka jecel yahay dadkiisa oo midaysan. Morgan weli isaga oo aan hadlin ayuu u soo taagay wadne kuna yidhi, daqiiqado ka hor ayaan ka soo jaray naag ay ruuxaantu noo hibaysay. intuu dhaqaaqay ayuu haddana dib u soo eegay oo yidhi, ma jirtaa fariin aan idinka gaarsiinayo Eedi? u sheeg in aanu qofna u ogolaan guriga inta ay ka maranayso cuntada qaboojiyaha ku jirta, ayuu Alan yidhi isaga oo ula jeeda hilibkii Winifred ee uu abtigiis shalay jarjarayay. halkaas ayuu Morgan ku dhaqaaqay. markii uu mirqay ayuu Alan hooyadii ku yidhi, hooyo, muxuu Morgan kaynta ka sameeyaa? markuu sidaas yidhi ayay Doris ku eegtay weji fooltub leh, indha gaduudan, cod fog oo xabeemanna ku tiri, berri ayaan kuu sheegayaa. intuu aamusay ayuu wax yarna gadaal uga sikaday. tani waa sababta ku qasabta inuu hooyadiis warsado wixii dan ah oo keliya. marmar buu dareemaa in aanay ka dhaxayn wax xiriir waalidnimo ah oo ay sidii bahal u kala goyn rabto. haye hooyo, kaynta ayaan u ugaarsi tagayaa. intuu yidhi ayuu baangadii qaatay oo ka dhaqaaqay. dadab ayuu u dhugtay isaga oo isha ku xadayo. mise wadnihii uu Morgan siiyey ayay cad ka goosatay oo liqday. intay urisay ayay inta kale kaynta ku tuurtay. wuu ku dhiiran waayey inuu warsado sababta, balse sidii qof aan waxba arag ayuu hortiisa u dhaqaaqay. inkasta oo magaceedu yahay kaynta geerida, haddana dadku hilib kama maarmo. dad badan ayaa si dhuumaalaysiya u ugaarsada, gaar ahaan doofaarka iyo deerada oo ku badan. xan baa tiraa sababta ay dowladdu u mamnuucday gelitaanka kayntan ma aha dhasheega dadka leh oo waa la awdi karaa, balse
waa in taranka duurjoogta lagu badbaadiyo. dad baa sheega in kayntu tahay meel martigelisa falal halis badan oo jinka lagu raaligeliyo. ma yaro sheekooyinka kayntan laga warinayo. dadkii amarka soo rogay oo qura ayaa wuxuu Alan ififaale ayaa u muuqda, balse weli wuxuu la mid yahay sida qof arkay faryarey go'aan oo isku dayayo inuu maleeyo sida uu yiin qofkii ay ka go'day mar dhow ayuu filayaa in uu dah furo runta oo buuxda. markii uu cabaar kaynta socday ayuu maqlay cod dadeed oo meel fog ka soo yeerayo. markii uu u dhawaaday ayuu arkay 2 nin oo uu midkood deera dhimatay dhabarka ku sito, kan kalena oo qoray sito. baangadii ayuu si fiican u qabsaday, wuuna ka soo daba dhaqaaqay. intii uu gaatamay ayaa waxa uga hormaray Morgan oo ninkii qoray watay qoorta ka jaray. ninkii deerada sitay ayaa booday oo intuu deeradii tuuray kaynta ku baxsaday. Alan waa nin orod iyo tiiro badan, isaga oo ku dhow inuu qoorta ka jaro ayaa waxa ninkiis ka soo horbaxday Doris oo timaheedii daamanku lalmanayaan. ninkii intii uu naxay ayuu suuxdin la dhacay. dil oo teendhada u soo qaad, aniguna Morgan baan deerada iyo maydka la qaadaya ay Doris ku tiri. waa yahay ayuu Alan yiri, isaga oo la yaaban sida ay ku ogaatay cidda uu Morgan dilay iyo deerada. markii ay Doris dhaqaaqday ayuu ninkii suuxsanay soo naaxay. waa oday caata ah, lehna bidaar weyn iyo tin cirruday oo madaxa garaarkiisa hoose ku sii dambayso. hilib badan ma laha, balse wadnihiisa ayaa ka gudayo ballantii ay jinka la galeen. durbadiiba ninkii uu soo fariistay kuna calacalay, fadlan ha idinin, waxa isugaya mataana yaryar, la'aantayna way dhibtoonayaan. waa imise jir carruurtaadu? Alan baa warsaday. waa 19 jiro. waa wiil iyo gabar mataana ah ayuu odagii ku warceliyey. hoos u hadal ayuu Alan yiri, isaga oo diidayo in ay hooyadiis iyo Morgan warkiisa maqlaan. wuxuu soo weydiiyey, maxaa kale oo aad hibaynaysaa? in aan alle aad u caabudo maalmaha yar ee noloshayda ka haray, ayuu ninkii ku jawaabay. cabaar ayuu arrinka qoyska ka warsaday. sidii saaxiibo sheekaysanaya oo kale ayay dhowr daqiiqo wada hadleen. kadibna Alan naxariis baa gashay. markaas buu yiri, agoonnimo way xanuun badan tahay ee istaag oo aqalkaaga aad. wuxuu qorsheynayaa inuu hadhow yiraah, wuu iga baxsaday. aad ayaad u mahadsan tahay. ninkii oo sidaas ku celinayo balse weli fadhiyo ayaa waxa dushooda soo istaagay Doris iyo Morgan. markaas buu Morgan ninkii qoorta ka jaray. intuu feeraha hoostooda ka jeexay oo wadnihii ka soo saaray ayuu Doris u dhiibay. sheeko looma baahna ee danteenu waa kan, ay Doris tiri, iyada oo wadnihii oo weli gujinayo indhaha ka saaraysa Alan. Morganna ninkii oo dhan ayuu dhabar ka saartay oo ula dhaqaaqay dhankii teendhada. markii ay teendhadii gaareen ayuu Morgan jarjaray hilibka 2 nin, marka laga reebo 2 wadnood oo ay Doris horay u cuntay. hilibkii ayuu ka saafay jiir burunji ah, intii kalena intuu bac ku shubay oo dhagax weyn kula riday ayuu dhasheegii ku tuuray. bacdii oo sii diisaysa ayuu Alan sii daawaday ilaa ay ka miriqday. kolkuu gadaal soo eegayna wuxuu arkay Morgan oo deeradii dhabarka ku sita oo halkaas sii maraya. intuu qiirooday ayuu ilmeeyey. wuxuu ahaa aabbo wanaagsan, ayuu yiri, isaga oo ula jeeda ninkii u dambeeyey ee la qashay. misana hooyadiis ayaa u yeertay. haddana isaga oo dhoola caddaynayo ayuu gadaal eegay. miyaad ooyeysaa ayay ku tiri. markaas buu ugu jawaabay, haa hooyo, waxaan la qiirooday dhibkiina soo maray iyo sida aan durba u gudanay qaantii ruuxaanta. weli hal wadne ayaa noo haray ayay tiri. intuu u soo dhawaaday ayuu ku yiri, hooyo, waxaad cuntay wadnihii Winifred, kii uu shalay Morgan noo keenay, iyo wadnaha 2 nin ee aan hadda dilnay. kaalay oo hilibka ii dub ayay tiri, iyada oo aan warkiisii dooc ka celin. wuxuu dareemay inuu codkeedii isbedelay, indhaheediina casaadeen. waa markii uu aamusi jiray. sidaas awgeed, isaga oo aan erey qura celin ayuu dabkii ololiyey oo hilibkii solay. intuu xeero weyn ka soo buuxiyey ayuu horteeda soo dhigay, hilbihii oo weli qiiqayo. ilaa cun ayay tiri, iyada oo cad weyn rifanaysa. Alan
oo indhaheeda eegaya ayaa cad qaatay oo goostay. daqiiqada kadibna xeeradii ayay mariyeen iyaga oo aan hilbaha kala badsan. Doris ayaa si la yaab leh u daacatay. waxaa la moodayay sac banaaxinaya, balse waa shanqar ay cabsi ku dheehan tahay. iyada oo wadnayaashii ay cuntay sharaxiisa ayay tiri, wadnaha uu Morgan siiyey wuxuu ahaa wadno doofaar. Alan oo madaxa ruxay ayaa yidhi, waayahay ee maxaan samaynaa? waa in aan helno 2 qof oo kale, qof aan qaantii ku gudno iyo qof dheeri ah oo aan ruuxaanta uga farxino, ayay tiri. waayahay hooyo, ayuu ugu jawaabay isaga oo u muuqda qof la dirqinayo. ma garanaysaa ka uu yahay qofka shanaad? ayay weydiisay. maya hooyo, waa Morgan, oo sabab ayaan u dilnaa sawkiina caawiyey. beerka uu inoo keenay wuxuu ahaa beer doofaar. ruuxaantuna wayna dilaysaa haddii aan tiradii 4 ahayd buuxin weyno. halis ayuu nala maagan yahay. Alan oo helay fursad uu hooyadiis wax ku warsado ayaa yidhi, muxuu nagula dagaalsan yahay? abtiga ayaa ah ku-xigeenka Johnson oo ah wakiilka dhibanaha ee carrigan. Morganna markii waayo badan la dalacsiin waayey ayuu xal ka raadinayaa inuu dilo. aniga, abtiga iyo Johnson, adigana kuma daynayo haddii uu baylah ka helo, ayay tiri iyada oo weji argagax leh muujinayso, indhihiina ay gaduuteen. Alan waa markii uu aamusi jiray, balse haatan wuu ku qasban yahay inuu hadlo. intuu geesaha eegay ayuu u soo dhowaaday oo ku yidhi, hooyo, sideen u dilaa? waa nin dhagar badane. wuxuu seexdaa geedkii aad xalay fuushay, geedka dhanka dhasheegka ka xigo. Alan oo la yaaban sida ay ku ogaatay geedkii uu xalay seexday ayaa gadaal u jibaday. hooyo, caawa ayaan wadnihiisa kuu keenayaa, ayuu ku farxad geliyey. beerka gabadhiisa inaan kiisa ku xijiyo ayay ahayd, ayay tiri. waatay gabadhiisu, ayuu yidhi isaga oo wax malaynaya. waa Winifred, isaga ayaa dhalay, ayay u raacisay. waan gartay, ayuu yidhi isaga oo wax qiiro ama xanaaq ah iska ilaalinayo. iyada ayaa isaga ka dhagar iyaalis badnayd, ayay tiri Doris oo aan muujinayn in aanay cidna marin habaabin. yaa kale uu dhalay Morgan, ayuu yidhi Alan oo iska hubinayo cidda godob u raacan karta haddii uu Morgan dilo. wuxuu dhalay wiil Ronaldo la yidhaah iyo gabar John la yidhaah. John waxay degan tahay villada iridda cagaaran ee ka dambaysa Hotel Tamberton. Ronaldo isagu wuxuu ku nool yahay koonfur bari Aasiya, magaalada Tumon, ayay ku jawaabtay iyada oo la moodo inay og tahay ujeedka su'aasha. wuxuu halkaas Ronaldo ka sameeyaa? ayuu weydiiyey Alan. hoyga dhibanaha ayuu la shaqeeyaa, balse baryahan xiriirka uu la leeyahay ma wanaagsana. isaga iyo aabihiis waxay qorsheynayaan xarun u gaar ah. Doris waxay tilmaam buuxda wiilkeeda ka siisay meesha uu Ronaldo ka joogo Tumon, xirfadda uu isku maldaho, muuqaalkiisa iyo meelaha laga helo. waxay kasha u gelisay warbixin u suuro gelinayso in maalintuu doono uu toos u abaaro. maalintaas siday isaga sheekaysanayeen ayuu Alan aaday balligii si uu hooyadiis biyo ugu keeno. mar dhow kaynta ayuu geli doonaa. caawana waxaa sugayo dhagartii ugu adkayd ee noloshiisa soo marta, waana dilka Morgan. markii uu balligii gaaray ayuu jilbaha dhulka dhigtay oo yidhi, ilaahayow, adiga awood badan ee guusha isii. waa ballan inaan caabudin cid aan adiga ahayn. isaga oo baryadii alla ku jiro ayuu halkaas waajeeday kabihii 2 nin oo dhasheega qarkiisa la dhigay. sida hooyadiis u sheegtay, mar kasta ee qof la dilaba waxaa qayb alaabtiisa ama dharkiisa ka mid ah la dhigaa dhasheega qarkiisa, waana inay halkaas yaallaan muddo 7 ah. dabcan ujeedo ayaa ka dambaysa. ma laga yaabaa in dadkaas la qashay loo ekaysiinayo kuwa ayagu ceelka isku tuuray? waa meel ciddii ku dhacdo laga quusto, balse Alan waxaa laabtiisa murjinayo kabaha cadcad ee uu xirnaa ninkii u dambeeyey. weli waxaa dhagihiisa ka sii yeeraya weedhay ninka ee ahayd,
waxaa isugayo mataano yaryar la'aantayna way dhibtoon doonaan. goor uu ku raaga milicsaga warkii odayga la dilay ayuu maqlay qaylo weyn oo dhankii teendhada ka yeertay. isaga oo aad u digtoon ayuu degdegay. markii uu teendhadii u dhowaaday ayuu arkay Morgan oo halkaas sii socdo. baangad uu dhiigga tifqayo ayaa garabka u saaran. wuu hubsaday in Morgan qof dilay, balse ma hubin karo cidda uu gowracay. waxay noqon kartaa qof uu soo ugaarsaday ama hooyadiis mid uun. aayar ayuu uga daba tallaabsaday. markuu dhasheegii ku dhowaaday oo uu kaymihii ka sii baxayo ayuu geed hunbalan hoostaga galay. wuxuu gartay inuu buurta fuuli doono oo uu dhulka oo dhan kor ka soo eegi doono. Alan markuu cabbaar halkii ku gambanayay ayuu gadaashiisa ka maqlay qoray jabay. intuu isku naxay ayuu eegay mise waa Morgan oo tartiib u taagsanayo. geesahana eegayo malaha dareenkiisa ayaa tusay in laga ag dhow yahay. si duukis ah ayuu gadaashiisa u socday, isaga oo geedaha isku aadinayo. qorraxdii ayaa dhacday, waxaase jira dayax buuxa, waana if ku filan inuu ugaarsaduhu ugaartiisa meel fog ka arko. Morgan isaga oo geedaha isku aadinayo oo weliba marmarka qaar garguuranayo ayuu hoosta ka soo istaagay geedkii uu Alan xalay seexday. jiriddii geedka intuu u dhowaaday ayuu dhagta taagay, kadibna tartiib ayuu u fuulay. sidii hore oo kale ayuu Alanna geed hunbulan hoos galay. markaas buu laamaha shinan dhexdooda wax ka biniininayaa. goor ay saq dhexe tahay ayuu Morgan geedkii ka soo degay, oo misena geedkii u dhowaa fuulay. waa geedkii ay hooyadiis u sheegtay inuu aqalkiisa yahay. markii ay saacado badan gudbeen ayuu Alan xabadka ku soo gurxaday ilaa uu geedkii dhowr tallaabo u jirsaday. waa sidii uu filayay ee wuxuu maqlay quro la yaab leh oo geedka dushiisa ka yeerayso. intuu baangadii gosha surtay ayuu tartiib geedka u fuulay. wuxuu indhaday Morgan oo meel dugsoon gadacad u jiifo. sidii libax dharga oo barqa seexday ayuu si kalsooni leh isu bilqay. Alan intuu baangadii isla baahayay ayuu uga jaray garabka midig. Morganna intuu soo booday ayuu baangadii qabso is yidhi, balse gacantii ayaaba go'an. meeshii uu baangadda ka dafi lahaa ayuu gacantii isaga ka go'day dhudhunka qabsaday. markaas buu iyada oo dhiiggu ka sayrmayo Alan la dhacay. markii uu Alan mar labaad baangadii isla baahiyey ayuu Morgan geedka ka dhacay. keligiis dhulka kuma dhicin, waxaase uga sii horreeyey dhiiggiisii oo sida biyo dhacayn dixda u waraabiyey. waqti intee la eg ayuu qof ku dul socon karaa qulqulka dhiiggiisa isaga oo meeshii uu garabku ka go'ay gacanta ku hayo ayuu kaynta ku mirqay. Alanna cabbaar ayuu sii fiiriyey meeshii uu ku mirqay, balse ma arag cid soo noqonayso. filashadiisu ma xuma. sidii waraabe ugaartiisii caloosha ka soo riday oo kale ayuu ku kalsoon yahay in Morgan u dhiman doono dhaawacii uu gaarsiiyey. wuxuu go'aansaday in uu geedka iska saarnaado ilaa waagu ka baryayo. haddii uu ka hawaa bari cadhigii ifiyey ayuu meelaha fog bidhaan ka eegay. markuu wax arki waayeyna geedka ka soo degay. si aayar ah buu u raacay dhibcihii dhiigga oo hadba sii yaryaraanayo. isaga oo digtooni iyo cabsi darteed sidii jirjiroolaha u socdo ayuu meel halkaas ah uga jeeday Morgan oo dhulka yaalla. wax hub ihi agtiisa kama muuqdaan. intuu u soo dhowaaday ayuu mar labaad baangad ku dhuftay, wuxuuna ka jaray madax aanu dhiig ka da'in. cirka ayuu eegay. markaas buu yidhi, ilaahow guushii waad i siisay, weligayna gargaarkaaga waan u baahanahay. ballan baan ku qaaday in cid aan adiga ahayn caabudin. intuu xabadka ka jeexay ayuu wadnihii kala baxay. dhankii hooyadiis jirtay ayuu u dhaqaaqay isaga oo u sida hadiyad ay ku farxi doonto. markuu teendhadii u dhowaaday ayuu meel fog ka arkay raqdii hooyadii oo kala go'an. wuu u soo dhowaaday, mise madaxeedii ayaa halkaas yaal, wadnihiina waa lagala baxay. wejigeedii ayuu eegay, mise indhaba laguma sii hayn karo. waa wax aan dadka u ekayn. weli wayna sirayaan ayuu yidhi isaga oo ula jeedo in waxaan yihiin indhasarcaad ay ruuxaantu samaynayso. gaarigiisii
ayuu soo kiciyey. Markaas buu ku raray raqdii hooyadii iyo Morgan, teendadii iyo wax kasto ay keenta la yimaadeen. Intuu dhasheegga afka u saaray ayuu midba mar ceelkii ku riday. hadba wixii uu ku ridana daqiiqada ayuu sii daawaday ilaa uu hubsaday in ay dhiiqada ku mirqeen. haddana wuxuu u soo degdegay dhankii balliga. wuxuu u maleeyaa in ay tahay markii ugu dambaysay ee uu dhiig faraha la galo. sidaas awgeed si aan weligu u mayran ayuu dhiiggii uga mayrtay. baangadii ayuu nadiifiyey, dhar cusub ayuu xirtay. dharkii horena intuu dhagax weyn ku xiray ayuu dhasheegga ku tuuray. wuuna sii daawaday ilaa ay dhiiqadu liqday. ma jirto waxa uu ceelkaas ku tuuro oo aanu sii daawan ilaa ay quusaan. alan aqalkiisii ayuu ku laabtay. jidkii haloosiga ahaa ayuu ku jarmaaday. wuxuu ahaa hodan ganacsade ah oo dhaqan wanaagsan. maantase waa dad qalka shaki qaba dhimirkiisa. sidoo kale wuxuu ka cabsi qabaa in ruuxaantu ka aarsato, balse wuxuu ciirsanayaa dhanka alle oo sidii wadaad suufi ah ayuu ducada afka ku haya. aabbihiis John wuxuu ahaa wadaad kiniisadeed. wuxuuna xasuustaa weedh uu ku yidhi 2 maalin ka hor intii aanu dhiman oo ahayd, awoowayaasha weligood ma caabudin cid aan alle ahayn. adigana waxaan kuu geynayaa ciddaadii ee marnaba ha ogolaan in aad hoygaas shayddaanka gasho. dhowr jeer oo horena wuxuu ku yidhi, samada iyo dhulka haddii aad xiriir wanaagsan la yeelato weligaa waxba kaama hallaabayaan. alan xalay wuxuu dareemay in samada looga hiiliyey. wuxuuse ka walwalayaa dembiga hilibkii dadeed ee uu qaarna dhadhamiyey, qaarna ka dhargay, qaarna uu dhasheegga ku qubay. laakiin marnaba wuu fasiri kari waayey ujeeddada weedhii aabbihii ee ahayd, waxaan kuu celinayaa ciddii aad ka tirsanayd. noloshiisii samayd ayuu dib u milicsaday. wax aan wanaag ahayn kama dhex arko marka laga reebo shakiyo aanu caddayn karin. reerkiisu wuxuu ahaa hodan oo hooyadiis iyo 2 wiil oo iyada la dhalatay ayaa hanti badan aabbahood ka dhaxlay. 2 wiil mid wuxuu u dhintay sabab aan la ogayn, midna waa Eddie oo isagu hantidiisii oo dhan u horay hoyga dhibanaha. balse Doris oo Alan hooyadiis ah, ganacsi ayay gelisay hantideedii wayna sii bulaashay. aqalkeedu waa fillo ku dhex yaal dhul weyn oo 100 hektar ah oo ay ku hareeraysan yihiin dhir-mirood iyo beero aad looga shaqeeyo. la soco qaybta 3 ee taxanaha Dadqalkii Naxariista Badnaa.